kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal wararka ugu waaweyn dhinaca ciyaaraha waxyaabaha aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah kooxda Chelsea ayaa 4 gool iyo waxba isaga reebtay kooxda Southampton ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Ingiriiska waxaana u dhaqaaqday booska afraad ee kala horeynta horyaalka waxa ay haddaba ka warsugaysaa Newcastle oo la ciyaaraysa Liverpool iyo kooxda Manchester City oo iyana la ciyaaraysa kooxda Tottenham toodii soo adkaatana booskaas waa ay ka leexsan doontaa dhinaca kalena ciyaarihii dhacay waxaa ka mid ahay ciyaartii waalida ahayd ee koobka Del Rey oo wareegiisa afarta kooxood ee dhex martay kooxda Barcelona oo gurigeeda lagula ciyaaray Atletico Madrid la qaadatay 4 gool iyo 4 ayay ku kala tageen kulankaas waalida ah waxaana dabcan Barcelona markii hore looga hormaray 2 gool 6 daqiiqo oo horeysay isla qaybta hore ee ciyaartana 4 gool waa 3 gool ayay dabcan ka daba keentay qaybtii dambena gool kale ayay u sii raacisay 4 gool iyo labadaas 84 daqiiqo ciyaarta ayaa ku hogaaminaysay waa laga daba yimid oo 4 iyo 4 ayaanay ku kala tageen 16 bisha March ayay dib ugu kulmi doonaan garoonka kooxda Atletico Madrid ee Wanda Metropolitano la yiraahdo kooxda Inter Milan iyo Lazio ciyaartii ku dhexmartay koobka Talyaanigana waxaa guul gaadhay kooxda Inter Milan oo 2 gool iyo eber ku adkaatay Marco Arnautovic iyo Hakan Calhanoglu ayaa goolasha u sahlay kooxda Inter Milan dhinaca kalena haddii aanu eegno ciyaaro ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa dhici doona kooxda Manchester City waxay soo dhaweynaysaa waxay u martin doontaa kooxda lagu magacaabo Tottenham ciyaar ka dhici doonta gegida Tottenham 10 iyo barka ayay dabcan ciyaartaasi dhici doontaa ee caawa waqtiga geeska Afrika waxaana kooxda Manchester City ka maqnaan doona xidiga badan halka dhinaca kooxda Tottenham ciyaaryahankooda lagu magacaabo Romero iyo xidiga kale oo Richarlison iyo ay ka mid yihiin ayana dib kooxda ugu soo laabteen oo ay kulankaas diyaar u noqon karaan City Akanji iyo Stones iyo Rodri iyo waliba xidiga kale oo Oscar Bob uu ka mid yahay ayaa ka maqan dhinaca kalena waxaa weli shaki la gelinaya laacibka Erling Haaland ee kooxda lagu magacaabo Manchester City booska sagaalaad ee weerarka isagu uga ciyaara kooxaha kale ee maanta kulmaya waxaa ku jira kulanka dhex maraya kooxaha Liverpool iyo Newcastle oo ku kulmi doona gegida Anfield Newcastle 28 ciyaarood ee ugu dambeeyay kumaanay adkaan gegida Anfield waxaana taasi ay u tahay dabarjab kooxdan oo horyaalka Ingiriiska iyadoo ka tirsan kulan adag ayaanay dabcan halkaas ku wada qaadan doonaan labadaas kooxood Liverpool dhinaceeda waxaa ka maqnaan doona Conor Bradley waxaase inuu dib u soo laabtay la rajaynayo McAllister oo jug ka soo gaadhay ciyaartii ay la qaadatay kooxda Manchester City ee toddobaadkan horaantiisii dhinaca kalena waxaa dabcan iyana jiri doona koobka Del Rey oo kooxda Real Madrid ay martay u noqon doonto kooxda Real Sociedad horyal waa tartanka Copa Del Rey oo dabcan labada kooxood ay isku food saari doonaan waxaa haddaba ciyaarta xiisaha lihi ay dabcan ka dhici doontaa gegida kooxda Real Sociedad kuwaas ayaa dabcan ka mid ah ciyaaraha dhacaya iyo waliba sheekooyinkii ku saabsanaa waxay idin soo qadimayaan oo Muuse Xushow dabcan daawadayaal subscribe-ka noogu dhufta YouTube-ka sidoo kalena qaybteena TikTok-ga iyo Facebook-gaba noo soo follow gareeyo waanaad ku mahadsantihiin la socodkeen